بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سلام يا ولاله الصوماليات ميلو البادافع عالم كجوغان سلام كدب. الحمد لله الله بام هذا رسولنا تاعي ان انت كدب فيديو يغان مانتا ان دوبايو waxaan waano walaalnimo ugu dirayaa wiil Soomaaliyeed oo runtii dood Hargeysa lagu qabtay su'aal aad u qaab daran keenay. su'aashaas oo xataa aysan munaasab ahayn inuu naftiisa weydiiyo, bal inuu dad weydiiyo iska dhaafe inuu naftiisa weydiiyo xataa aan munaasab u ahayn. su'aashaas baana videogan magac u dhigay oo magacaas oo ah hooyaday gurigayga maxay ka soo doonaysaa. walaalkayow waxaan ku leeyahay adiga iyo inta aaminsan fikirkaas qalin iyo buug soo qaado, korka kore waxaad ciwaan uga dhigtaa mawduuca hooyo, kadib waxaa qortaa number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 qor. intaa markaa qorto qodobka koowaad waxaad ku qortaa hooyo maalinkii ama habeenkii caloosheeda aan galay oo ay walaca noqotay xanuunka iyo dhibka ay soo martay muxuu ahaa. qor. markaad intaa kulli si fiican u soo wada qorto kadib waxaad qortaa haddana hooyaday uurka markii igu waday 9 bilood oo ay caloosha igu waday dhib imise la egba ila soo martay. intaana markaad meel ku qorto oo qodobka labaad ka dhigto, qodobka saddexaad waxaad ka dhigtaa hooyaday markii i foolanaysay maxay dhibaho igala kulantay. markaad iyadana dhibaatada qorto inta ay tahay waxaad qortaa haddana hooyaday markii i umulisay dhibka ila soo martay muxuu yahay. qodobka isagana markaa qorto iyo inta ay kaala soo martay, qodobka ugu dambeeya waxaa ka dhigtaa hooyaday markii i barbaarinaysay i tarbiyadeynaysay dhibka ay ila soo martay imisolaka. intaa markaad qorto oo qodobadii ay saa kuugu taxan yihiin, qodobada dhinacooda waxaad ku qortaa su'aashaadii oo ah hooyaday gurigayga maxay ka soo doonaysaa. hooyaday gurigayga maxay ka soo doonaysaa, gurigeeda may joogto. kadib waxaad isku fiirisaa su'aashaadan iyo qoraalkii aad samaysay wixii lagula soo maray, labadooda markaad isku fiiriso kadib waxaad qortaa hooyaday gurigan maxay ka tahay, gurigayga maxay ka tahay. ku qor labadaas su'aalood oo aad naftaada weydiinasana. haddaad qof damiir la tahay, hooyo iyo qiimaheeda yaqaana tahay, qofka insaan kugu khaldama oo hal mar khaldamay haddaad tahay, wallaahi way kuu muuqanaysaa hooyo iyo qiimaheeda iyo sharafkeeda iyo waxay tahay way kuu muuqanaysaa. laakiin haddii ay uun tahay muxuu waxaa la yiraahdo qof uun ku taageer, aniga waxaan filayaa fikirkan iyo waxaan aad waday waxay uun ku ahayd labadii gabdhood oo sodooda ka soo horjeeday in aad ugu saacabiso, in aad ku dhiirigeliso, in aad ku taageerto, taageerana ugu muujiso unbay aniga ila ahayd. laakiin waxaan ku leeyahay walaalkayow, allah rabbi subxaanahu wa tacaala u soo laabo, ilaahay u toobadkeen. hooyadaa hadday nooshahayna u tag hooyada, labada lugood qabso, ku dul ooy, labada lugood ka dhunko, madaxa ka dhunko, icafidha hooyo waan kugu khaldameye, icafidha hooyo waan kugu gafaye, icafidha hooyo sharafkaaga iyo qiimahaagii baan meel uga dhacaye. waayo waxaan muujiyey oo ii muuqday jacaylkan adi kuu hayay, ixtiraamkii iyo wanaaggii aan kuu hayay, in ay igala qiimo badatay gabadhan aan shalay soo guursaday, in ay igala qiimo badatay baa ii muuqatay. bilaahi calayk, war caasinimada ka weyn, caaqinimada ka weyn maxay tahay? hooyadaadii ku dhashay intaasoo dhiba kula soo martay in xaaskaagu markay ku tiraahdo gurigayga ma soo geli karto aad ku tiraahdo haye ma soo geli karto. caaqinimada ka weyn waa maxay? soomaaliya ilaahay aan u soo noqono, soomaaliya waalidka aan asxaan u samayno, soomaaliya waalidka yaanan xumaynin. war waalidku wallaahi waa janno ama waa naar, wallaahi waalidku ama waa janno ama waa naar, waa kaad ka dhigato. ama jannay kuu yihiin oo haddaad baari u noqoto, haddaad u wanaagsanaato, haddaad asxaan u samayso, haddaad u fiicnaato, wallaahi jannay kuu noqonayaan.
محل يري الجنة تحت أقدام الأمهات. جنة وحي تالا جنة مدونيسان جنة مدونينا جنة وحي تالا لبدا لغد هويو باي هوس تالا هلكا aan ka raadsano. laakiin markaad leedahay hooyaday gurigayga maxay ka soo doonaysaa soo maadan muujinin gabadhan shalay aad soo guursatay inaad qiimeynayso yaa axmaq yaa doqon raganimaad saa ku sheeganaysaa adiga inta kula midaaba. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala xaqa hayna waafajiyo. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala cuquuqul waalidayn inagama dhigo. ilaahay kuwa cuquuqa inagama dhigo. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala inagama dhigo kuwa labadooda waalid caaq ku noqda. ilaahay ha inaga dhigo kuwa waalidkood baarir u noqda. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ha inaga dhigo qof walbo fekerka aaminsanowna wallahi inaadan guul ka gaareen baan ku leeyahay. wallahi inaadan guul ka gaareen baan ku leeyahay. intaasna hadalkay ku soo koobaya. haddii hadalkayga xogaa يعني حالة اسبدشات أتكدر أنتين يقرأ لهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.